Ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta kaasoo aynu ku soo qaadan doono sheeko aad iyo aad u xiiso badan taasoo ka hadlaysa dadkii hore. Haddaba haddii aad ereyada fahmi weydo waxaynu ku faahfaahin doonaa muuqaalka subscribe-tana ku dhaxsii. Waxaa jiray nin lagu magacaabo Dalmar kaasoo ku noolaa meel miyi ah isagoo geel eegi jiray. Weligiina geela siduu eegi jiray toob ku noqday waa aad iyo aad u weynaa. Markii uu weynaaday ayaa waxaa dhacday abaar ayaa dhacday sidaa darteed ayuu meel kale geeli u raray meel ay abaari aan ka jirin oo iska barwaaqo ah. Isla markiina habeenkii roob ayaa ku da'ay aad iyo aad u ballaaran. Subaxii markii waagu baryayna waxaa ku bilaabay may. Isla markii uu maygu qaaday roobka mayga loo yaqaano uu qaaday ayaa waxaa dhacday inuu geelii kaxeeyo soo soofiyo isla markaana walaalkii ku waalidkeeda meel sii joogi waxay noo soo warayaa daahyadii ama waxyaan huweynaynay sidaa darteed ayaa uu intii xaqii ugu maqnaa ayaa geelii ayaa si yara fogaaday sidaa darteed waa uu ka damiintay isagoo geeli meel dheer ka eegaya ayaa waxaa arkay geelii oo meel agtiisa daaqaya oo daaqaya geedihiis gaadheen oo aad iyo aad barwaaqo u ah halkiina ayaa walaalkii ku eegayay isla markaana waxa uu yara fuulay tutumo ama waxa uu abarku samaysaa u taqaanaba isagoo hareeraha yareeyay dad iyo baal iyo wixii joogo meesha yareeyay oo saaminaya ayaa waxa uu jeeta ka arkay wax nin iyo naag ugu kala saari waayo oo meel dheer ka soo muuqda sidaa darteed wixii ayaa kolba indhaha la raacayay markii wixii yar soo jiidsaday ee uu soo dhowaaday ayaa waxay noqotay gabadh aad iyo aad u qurux badan taasoo qalbigiisa dhammaan jiridhaca oo jidhkiisa saaqday isla markaana waxa uu Dalmar isku soo diyaariyay shukaansi isla markaana dhankii gabadha ayaa u soo dhaqaaqay isla markii uu gabadha ay bareedin iyo isbarasho kadib ay isweydiiyeen halkii shir iyo la isku yar tuurtuuray ayaa waxaa dhacday inuu gabadhii weydiiyo gabadh waxay rabtay isla markaana waxay u sheegtay inay rabtay meydhax isla markaana ay waxay ku tiri xoog abuur baale kaalayo baashi ila go isla markaana waxa uu yiri adiga geedaha soo saarsaday geedkaas saarsaday ama geedkaas soo xulatay ayaan ku goynayay namar isla markaana geedkii ay tustay isagoo geedkii kor u fuulay ayaa waxa arkay quruxdeeda jidhkeeda ayuu mid u raacay isla markaana aad iyo aad u socday gabadhina shacay ayaa uu qaaday markii uu dhameeyay meydhaxdii ayayna waxay la soo galay minti ay xagga dambe ku wadatay sidaa darteed bay waxay diyaaratay meydhaxdeedii isla markii ay meydhaxdeeda diyaaratay halkii hasaawaan ay wadeen ayaa waxay ku ballameen habeen inay ciyaar u soo baxaan halkaas oo xaafadooda agteeda ahayd meeshii ayayna u tilmaamtay saaxiibayaal qaybtan waa qaybtii koowaad qaybta labaad baan soo dhigi doonaa la socda muuqaalka ilaa dhammaan